laga yaabaa inaad weligaa isweydiisay sababta loo dhisay ahraamta iyo sidoo kale qaabkii loo dhisay iyo maxaa laga helay markii la faqay. Videoga dhamaysa si aan wada ogaano. su-aashaas qof kasta uu isweydiinaya marka ugu horeysa uu arko ahraamta Masar ku yaala, waayo ahraamtu waxa ay dhisan yihiin 4500 oo sano ka hor. waxaana la yaab ka dhigaya arrinka maadaama intaasoo sano ka hor ayna jirin wax tiknoolajiyad ah iyo sidoo kale qalab hirgeliya in la dhiso dhismaha intaa leeg. waayo xilligii la dhisay xitaa lama soo saarin waxa ugu yar ee dhismaha loo isticmaalo sida kaariyoonaha oo kale. sidoo kale Masriyiintu ma ay haysan wax qalab ah oo ka saacidaya in ay dhistaan dhismayaasha noocaas oo kale ah. laakiin ta keliya ee la ogsoon yahay ayaa ah in ay ahaayeen dad taanjiriin ah oo haysta hanti badan iyo dahab badan, iyo sidoo kale dad ku horumarsan dhinaca cilmiga. sida aan qisooyinka qaar ku aragnay, waxa aan ku maqalnaa in ay ahraamta ay dhiseen dad addoommo ah oona aan ahayn Masriyiin. laakiin runtii markii la sameeyey cilmi baadhis kadib waxa la ogaaday in dadkii dhisay ay ahaayeen dad Masriyiin ah oo u dhashay deegaankooga. sababta loo dhisay ayaa runtii ah in ay masaaridii hore aaminsanaayeen marka ay dhintaan in ay nolol kale galayaan. sidaa darteed waxa ay sii qaadan jireen nin walba waxa uu hanti haysto ee ugu qaalisan. dadka caadigu runtii caadi ayaa loogula aasi jiray alaabtooda, laakiin waxaa dhici jirtay in ay tuugtu inta ay faqaan ay kala bixi jireen. laakiin waxaa loo samayn jiray dadka caanka ah iyo sidoo kale madaxda in loola aaso alaabtooda, kadibna waxaa lagu hoos aasi jiray ahraamta, taasoo runtii adag tahay in tuugta iyo sidoo kale dadka raba in ay dhacaan ay ku adkaan jirtay. laakiin su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa looga dhigi waayey shayb kale ama qaab kale loogu samayn waayo oo loogu sameeyey qaabkaas oo hadda yahay maadaama wax faa'iidaa ku fadhin. jawaabtuna waxa ay tahay marka aad dhismo adigu dhisanaysid waxa aad ka fikirtaa koska ama lacagta kaaga baxaysa dhismahaas. sidoo kale Masriyiintu waxa ay ka fikirayeen dhismaha, waayo hadduu qaab kale noqdo waa uu dheeraanayaa, lacagtuna way badanaysaa. laakiin iminka marka hoos laga soo bilowbo, hoosta iyo korku isma leeko, shaygiina uu dheer yahay, lacagta ku baxaysayna way yaraatay. sababtaa darteed ayaa looga dhigay qaabka uu hadda yahay ee noocaas oo kale ah. dharar ahaan way ku kala duwan yihiin inta ay leegyihiin, laakiin ka ugu dheeri waxa uu leegyahay 146 mitir. haddaba han eegno qaabka loo dhisay. ahraamtu waxa ay ahaayeen markii hore kuwa cad sida qaabkaas oo kale ah, laakiin sanado kadib waxa dhacday in la iska xado ay dadku xadaan dhagaxii caddaa, kadibna waxa uu soo haray qaabka uu hadda yahay oo kale. dhisidda waxa la sameeyay inta hoose in si caadiya loo soo dhiso, kadibna dhismuhu marka uu yar dheeraado in ciid lagu soo buuxiyo meel ay soo mari karaan dadka shaqaalaha si ay u qaadaan dhagaxdii. qaabkaasoo kale ayaa loogu soo wareejiyey ilaa laga gaarayay xagga sare oo la saarayay dahab si uu habeenkii u dhalaalo oo bilicda u soo baxdo. haramku ayaa loogu sameeyey dahabka la dhigay. kadibna waxa la sameeyey in dib loo soo dhiso qaybtii laga booday ee shaqaaluhu marayeen markii hore, kaas oo la moodayn in ay jirinba. waxaa la sheegaa in ay qaadatay dhisitaanka ahraamtu midkiiba muddo gaadhaysa 30 sano. runtii tani waxa ay caddaynaysaa in ay ahaayeen dadkii masaaridii hore dad aad u maskax badan. haddaba intaas ayaan kusoo koobaynaa waxaan ka haynay ahraamta Masar ku yaala. haddaba haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, sidoo kale soo booqo TikTok-yaga iyo sidoo kale Instagram-ka. waad mahadsantihiin.